السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي دمان وايدين سلامي سيتهين كسر هذا مركلة جو جنة إن ما أنت وحايدين وذا إسلا سمينينا إلهي إذنكي باست لازانيا يا لازانيا قرنين يا ما شاء الله كالي مركا إسلا سمينين marka hore waxaa u baahanaa dabcan saliida dabka soo saartay waa inoo kululaatay. waxaan soo jarjartay 2 xabo basal ah. 2 xabo basal daarabti 3 xabo ka dhigo, daarabti 1 xabo ka dhigo, adigii basasha sidaa u jeceshahay, ma fahantay? marka aan 2 xabo basal inta ku soo shiilanaya basasha wax yar shiilo, basasha saliida isku daay ha ku soo guduudato basasha markay ku soo guduudato ku darso wax walba ku darsanaysa, laakiin marka hore basasha hal iska guduudiyo, cuntada saasay ku macaan tahay, ma fahantay? marka masha Allah waa kaas basasheena shiilanayna. basasheena dacbaar inoo shiilantay ilaa ay midab guduudan, midab dahabi ah ka soo yeelatay. waa ka sacba dabka u daayay wax yar, waxay noo soo yeelatay midab yar oo dahabi ah. markaas waxaan ku soo darsanay hilibkeeni. ani waxaan isticmaalayaa hilib shishiid. hadaa rabtid hilib dooro shishiid isticmaal, wax adiga markaas ku yaalo. hilibka marka iska qalay aad iyo aad iskaga qalay hilibka, biyaha dhan inuu ku guursado fiican oo maxal lahaya saliid bis ku shiilshid, biyaha dhan ku guursado, dabka u daay. maxal lahaya markuu guursado waxa ku dareysid ku dar. maxal lahad aniga waxa ku soo daraaya shishiid, yani shishiid. marka yani shishiidka marka ku dareysid qaleel ha ahaado, biyo dhan iyo lahaan hilibka ya. marka waa kaas masha Allah, yani shishiidayna ku soo darsanay, yani shishiid kisto fiican oo ku soo darsada, ma fahantay? suugada guduud igu noqoto. waa kaas shishiidii hilibkii basasha iyo isku shiile ya, masha Allah kaal arag ku soo baxday. kadib waxa ku soo shiitay gasac yaanyada gasac oo 2 gasac aan soo shiitay. marka adiga yaanya caadi hada ku taal fresh shiido ku darso, laakiin ani yaanya fresh ima taalin wax badan. marka 2 xabo gasac soo shiitay, yaanyada gasac 2 xabo soo shiitay ku soo darsaday. marka suuga fariid ma laga rabo, biyana lagama rabo, iska suugo waxa laga rabaa oo iska meel dhaxaad biyo yarna leh, ma fahantay? marka waa kaas waa dabool suugadii soo badbaday. waa kaas saliid way soo tuftay. marka suugada hadee marba saliid ku soo tufto waxay diyaar ah, ma fahantay? wax yar oo been u baahan tahay dabka ku heynaysa adii kale. marka hadda waxa ku soo darsaday tuun kabsar caleen ku darso, laakiin ani kabsar caleen ay mataale. marka tuun taasoo tuuntay ku soo darsaday 2 xabo tuun camal ahayd. marka aad tuunta taa jecleen iska dhaaf, laakiin tuunta dhadhan macaan caraf ay ku siinaysaa. kadib waxa ku soo darsanay karooto. hadaa aad rabto waa iska dhaafi kartaa karooto, laakiin ana 1 xabo karooto soo hoole ku soo daray, ma fahantay? marka karootada hadaa rabto iska daay, laakiin ana waa ku darsaday, way ku macaaneed, masha Allah ku soo baxday. marka waxyaabo kale hadaa rabtidna waa ku darsan kartaa barbarooni iyo waxaas, laakiin ani wax kale kuma darin, karootadaas bis ku darsaa aragtaanba. hadda waxa ku soo daray xawaajiga mashakalka midka oo 7 xawaaji ee dhahan oo isku dhex jira. marka xawaajigaas ku soo daray, asigana waa ku walwalaaqay. marka aad u dhex gashay waxa ku soo darsanayna maajigeena. marka ana suugada badanaa maajig waxa ku daraa marka ka dajirab dabka, wax yariis oo been ku haynaya, kadib waa ka tinaya. marka hadda maanta waxa ku daraa suugada wax yar oo dheeri moogi dadka haday yaqaanaan iyo haday aqoonin ayaa la soo eedeynaya. hadaadan aqoonin hadda baro. wax yar oo waxaan ku daray wax yar oo far isuul oo sokor aan ku daray. marka sokorta dhadhanka ku dheelitiran, ma fahantay? dhadhanka uu ku fadhiisinaya. marka ku dar dhadhami baraway sokorta daadan wiliga suugo ku darsanin. marka dhanaan badan xataa doo ku leeyahay sokorta wax yar saada dhibic ku siisid, dhanaanka wax yar uu ka jabaya, ma fahantay? marka wax yar laakiin qaadaha la tagin wax yar fariisul ku darsa aragteenba. marka waa kaas masha Allah suugadeeni way ka soo dhacday, samaha diyaar inoo tahay. marka hadda wax yariis wax way fadhisaa, biyo yar kadaal ugu daray. marka hadda waxaan sameynaynaa bashameelkii ama suugada cadeed oo lagu darsanayo baasta lasaanyaha ama baasta alforno, qof walba sida u yaqaano. marka subag dhalaaliye maxaa la dhahaye, hadaa saliid isticmaali kartaa, laakiin subag uga caraf badan. subag dhalaaliye waxa ku soo darsaday 3 qaado oo bur
marka burkii iyo subagii aan isku shiilayaa. marka isqabsadaan waxaan kusoo darsanaynaa caanaheeni. laakiin marka hore wax yar subagii iyo burka isku shiil. caanahana markaa ku dareysidna hal mar ha ku wada darin, haddii kale wuxuu kaa noqonayaa burbur. marka caanaha markaa ku dareysid tartiib ugu dar ilaa oo burtuq dhan oo kaa yeelanin oo smooth ku wada noqdo, ma fahante. marka waa kaasa caanaheena kusoo darsanaynaa. kaale iska arag tartiib caana ugu daraa sida aragtaan asxaabay. soo dhawaada asxaabi, fadlan like-tan oo saari subscribe-ka oo la wadaag asxaabtiin. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta cusub oo soo dhaweynaya. kusoo dhawaada qalbi furan. ku ila joogan waxaan dhahaa ila sii jooga insha Allah. wax badan baa iga faa'iidi doontiin. aad iyo aad u mahadsantihiin. marka waa kaasa saasoo noogu soo baxay, ma fahante. hadda waxa isbiibi waa laakiin gadaal ka soo adkaanaya. markuu soo adkaado waa kaas hadda soo adkaado. markuu soo adkaado wax badan ba ma lagu daro bahashaan. filfil yar, cusbo yar, jak waaba dhan tahayba, waaba dhammaystiran tahay. iyo wax yaroo jiis ah ku daraya. marka filfish wax yar oo kuleel ku siinaysa. by the way waa ku darsan kartaa basbaas daarabtid, suugada ku darsan, laakiin basbaaska inta iskaga darin. wax kuleelka dad jecel jir soo maaha, aan laakiin basbaas oo dhan ugu dhaweynin. marka cusbo yar ku soo dar hadana waa aragteen yaano dhanaanka badan wax lagu daraa jiisa hadda ku soo daraaya. suugada imaajiga ku jiray marka hadhowna markii la shiil ovenka la gelinayo jiis badan lagu daraaya. marka dhanaanku isku tagtagaya, ma fahante. dhanaanka marka dhanaan badan ha iskaga darin, dhanaanka hadhow asiga is dhameystiraayo. marka waa kaasa maasha Allah bashameelkeena waa noo diyaar, waxba kama dhinna. saasoo noogu soo baxay. saas hadda jileec waa mujada. hadhow markay qabowdo gadaal ka soo adkaanaysaa. marka intaan wax yar ka bibiyeysid ma ahaye kaaga sii adkaanin. marka waa kana aniga waxa isticmaalaya baastada lasaanyaha midaan isticmaalaya. midaan shaqo badan ay galis horta idinkaaga sheekeeyo. waxaa ku qoran in marka hore dabka biyaha ku karkarisid kadib ovenka aad gelinaysid. shaqo aday igu badisay, ma fahantay. laakiin had kadib insha Allah before aan soo gadin aska akhri doona idinkan saa sameeya. waxa fiican midda oo hore aad ovenka gelinaysid. tan aniga dabka sii saaray oo biyo ku kariyo hadan ovenka wallahi saacad ku sii jirtay. ka warama idinku xas. marka hoosh igu badisay. marka idinka bal ka taxadara anna had kadib waan iska soo akhrina intaan soo qaadanin. marka waa kaasa hadda saxankan ovenka la gelinaya. marka hore suugadii aan saaraya. saxanka suugadii aan ku bilaabaya. suugadii ay dhan ku simaya. saxanka gees ilaa ka gees suugadaan gaarsiinaya. marka suugada wada gaarto kadib waxaan ku soo shubanaynaa suugadeeni kala cadeed ama bashmeel qof walba soo yaqaano. marka kaasa suugadeeni cadeeda ku soo shubanay. maxaa dhahay kadib abaasada ku soo safanayna. laakiin marka hore bashmeelka suugada ka hormari. haddii kale hadhow baastada hoos qaleelay kaaga noqonaysa, ma fahante. isma aadayso. marka kadib baastadeeni soo saaranaynaa oo aan ku safeynaa. waa lagu safaaya. mujada hadda hal xabaa soo dhiga haddana kadib waa ku soo wada safaaya. step by step marka ku safaa idin ma tusin, laakiin waqtiga badana video had saan ku dheeryahay ma. marka waa kaasa saasa u soo wada safay. marka haddana suugadii saaraysa. maxaa la hadana suugadii cadeeda kor saaraysa. marka waxa samaysaa baastada maxaa dhahay lasaanyada waxay ku cantahay way soo fuuraysaa mogtahay. marka geesaha hadhow way la soo baxaysaa. soo marka geesaha ugu roona suugada si hadhow geesaha kaaga khalalin, ma fahante. geesaha ugu roona si hadhow geesaha qaleel kaaga noqon. markay soo baxdo hadhow soo fuuraysaa wax kor u soo kacaysaa. marka suugadeeni baastadii marka waxa kor saaray suugadii caadiga ahayd guduudneed haddana waxa soo kor saaray suugadeeni cadeed ama bashameelkii. marka waa kaasa waa iska fududahay. wax yar soo sheeda badan, ma fahante. laakiin waa macaan. waa u qalantaa, ma fahante. waa sheeda waa u qalantaa. marka asxaabay sameystaa oo asxaabtiin la wadaaga. asxaabta cusub waxaan dhahay soo dhawaada, fadlan idinka subscribe-ka siiya dadka fiirsanaayo. aad iyo aad u mahadsantihiin. waa kaasa hadda kulli waa soo dhameeyay. 3 dabaq camal ka soo dhigay, laakiin sidii ay idin tusaa ku soo wada dhameeyay, ma fahante. baastadii waxaan la suugadii bashameelka jiis yar kor saar, haddana baasto, haddana suugo, haddana suugadii cadeed, haddana jiis saasa ku soo wada dhameeyay.
jag maasha allah way la ekaataba saxankii yaa laakiin hadhow way soo fuuraysaa. marka hadda waxaa gelgelinayaa istakiinka wuxuu kaa caawinayaa aluminiumka inuu kaaga dhigin jiiska maaragta kor kugu haynaya. marka istakiinka wax walba islees aluminiumka ama kaaga dhigaa istakiinkaas isticmaal. istakiinka marka aluminiumka dah camal kor kugu haynaya yaa. marka bal isticmaal hadda kadib hadoo aleedma fikrad fiican way soo maha. marka waa kaas kor u haya istakiinka aluminiumka ma kaaga fadhiisanaya jiiska iyo ma fahantay. hadhow badana aluminiumka jiiska iyo kulli waa soo qaadanaya inta badan saasa isku arki jir. laakiin fikradan meel ka arkay maasha allah waa inay hirgasho. waa ujeeda waxa dhan wax ka maqan ma laha jiiskii oo dhan meesha ku jeera samaha. aluminiumka asoo nadiif ah ka kor qaaday. marka ima suurtagelin inaan idin soo duubo markay kasoo bixinaaye yaa waa lagu kala haadaba waqti badan ma haysanin. marka haddaa rabtid inay saan kugu soo baxdo waa inaa waqti siisaa qabowdaa ma fahantay. ugu yaraan marka oven kasoo baxay 15 daqiiqo inaa siisid si kugu qabowdo markaasaa googoosan kartaa. laakiin haddii kale caadi baasta camal u guranaysaa. marka waa kaas asxaabay saanay noogu soo baxda maasha allah aad u macaaneed. fadlan ka faa'iideysta asxaabtiina la wadaaga. fadlan like nala dhinac marina iyo subscribe-ka aad iyo aad u mahadsantihiin. maxaa lahaa inta dib u kulmi doono waa joojano idin la sidaas nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.